على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. maanta madaxweynaha iyo labada gudoomiye xisbi qaran fariin isku mid ah idin sideen fariintiina madaxweynaha gudbiyay marka inta uu madaxweynuhu yiri waa inaanu isku waafaqsanahay kuna garab taaganahay fariinta koowaad ee ku saabsan caafimaadka waxaan shacbiga Soomaaliland ugu celinayaa inuu xilku ina wada saaran yahay madaxweynuhu waa madaxweyne qaranka xukuumaduna waa xukuumadeeni waajibaadka ugu weyn ee ka hortaga ilaahay naga badbaadiyay cudurkaas wuxuu saaran yahay xukuumadda laakiin waa waajib qof kasta muwaadin saaran xukuumaddan waxa looga baahan yahay intii ay qabatay in ka badan inay qabato diyaar garow intii ka badan inay samayso dadaal intii ka badan inay samayso laakiin waxa ugu muhiimsan in muwaadinku uu qaato fariinta caafimaad ee loo soo gudbiyay iyo awaamirta caafimaadka ee ku saabsan ee loo soo gudbiyay ee u soo gudbiyeen dhakhaatiirta iyo guddiga qaranka ee ka hortagga cudurka dilaaga ama safmarka marka waxaan ku celcelinaynaa inaynu dhammaanteen u hogaansano fariimaha caafimaad oo tilmaamaha naysiyeenu raacno oo ka mid yahay kala fogaanshaha iyo inaynu socodka yarayno qaabkaynu noolnahay wax badan baa laga yaabaa inaanu inoo saamixin guryahaynu ku noolnahay sidaynu noolnahay ehelka iyo qaraabada aynu nahay islaamnimada aynu nahay raximka aynu doonayno inaynu xidhiidhno intaasoo dhamme waxa laga yaabaa inaynu inoo saamixin inaynu kala tagno oo kala fogaano laakiin intaynu taxadiri karno waajibkaasi wuxuu saaran yahay qof kasta oo dareema inuu xanuunsanayana ama xumaad qabatana waxa loo baahan yahay hay'adaha caafimaadka inuu la xidhiidho xukuumaddana waxa looga baahan yahay dadaal intii ay qabatay labalaabkeedii ka badanba waa looga baahan yahay arrinta ku saabsan banka adduunka iyo deymaha laga dhaafay Soomaaliya sida madaxweynuhu soo gudbiyay waxaanu isku wada raacsanahay in Soomaaliya iyo Somaliland laba dalood ee jaar ay yihiin oo walaalo ah bankuna waxaan leenahay waxa ku waajibay inuu si gaar ah ula kala dhaqmo Soomaaliya iyo Somaliland marka waa fariinta guud aanu dirayno banka taa madaxweynaha nu xoojinaynaa Somaliland waxa koob 90kii bay isugu dambeysay waxay isugu jirkoodii koob 90kii baynu ku dhawaaqnay madax banaani inkastoo inaan helin اعتراف لكن دنيا waxay noola dhaqantaa Somaliland inaynu nahay waxaanu doonaynaa in Somaliland ahaan baankuna ula dhaqmo Somaliland wixii la siinayna toos loo siiyo oo aan cidna loo soo marin fariinta ugu dambaysa ee ku saabsan commissionka labada xubnood iyadoo la marayo dariiqa sharciga ahayd in maanta ansixiyaan goluhu uu madax banaanaysa madaxweynuhu sheegay laakiin waxaan u sheegayaa shacbiga inaan diidmadaasi waxba ka bedelaynin in doorashadii qabsoonto doorashadu way qabsoomaysaa arinta xubnaha la diidayna tala la isugu noqonaya azaabtu tala isugu noqonaysaa xukuumaduna saa madaxweynuhu sheegay way isku noqonaysaa golahana waa la tala gelinayaa arintaana xal doorashadu ku socoto ayaynu insha Allah ka dhalin doonaa sida ugu dhaqsaha badanna arintaasi way u qabsoomi doontaa hadii ay baydmo laakiin waxaan sheegayaa in arintaasi waxba ka bedeli mayso dariiqii ay haysatay in doorasho aynu qabanno aad iyo aad baa u mahadsantihiin